gudoomiyaha gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise iyo maayarka caasimadda gobolka Gabiley Mudane Maxamed Aamin Cumar Cabdi ayaa la dardaarmay ciyaartooyga gobolka Gabiley uga qayb galaya tartanada kala duwan ee ciyaaraha gobolada Soomaaliland. Mas'uuliyiintaasi oo ciyaartooyada la hadlay ayaa waxay yiraahdeen hadda tahay amba bixaynu waan bixi lahayn israareebkii hore ka dhacay gobolka Awdal. runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ciyaartooyga dadaalka ay sameeyeen macallimiinta iyo guddido isku duuban sanadkana siduu sheegay ciyaartooyga iyo macallimiintu waxay nasiib u heleen guddida waaya aragga waxa weyn istambeedka oo hayd aqoon ahaan iyo waaya aragnimo ahaan runtii garab taagnaa wixii waaya aragnimo iyo wixii aqoon ahaan wixii xirfad ahaa runtii la barbar joogay aad baan iyaga ugu mahad celinaynaa. hadda waxaynu geli doonaa safarkaana waxaan rajaynaynaa inaynu guul ka soo hoyno ka dambana inaynu guul ka soo hoyno inuu koobka sanadka aynu gobolka keenno. aad iyo aad baan mahadsantihiin. imika waxaynu joognaa gabagabo waxaan arkayaa runtii rag diyaarsan aad maaragtay ka muuqata tababar physical ah oo jir ahaan ay u dhisan yihiin. waxaan rajaynayaa ciyaar ahaan xirfad ahaan inay sidaas kale u dhisan yihiin. runtii rajo fiican ayaanu qabnaa markaanu aragnay imika maanta dhalinyarada isu siman dhisan rajo wanaagsan iyo diilayna geliyeen. waxaan rajaynayaa koobka inaan soo qaadi doono haddii la yidhi insha Allah. waxaynu tegaynaa waa Boorame socodkiina iyo mataqaanaa hawlihiina inay maartay inaad isku xidhnaataan. anigu shalay Boorame tagay waxaan soo eegay gurigii aad degi lahaydeen. sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay tababarayaasha ciyaartooyada iyo isuduwaha ciyaaraha gobolka Gabiley. waxaan ka qayb gali doonaa koosaarataan ama isuduwahan anu waxaan dheernahay gobolada kale guddida tuulka ah haday tahay basket iyo haday orodtahay fududii tahay la shaqeynaysa khibradii ay hayeen ku soo contribute gareynaya. halkan aniga ku soo koobaya hadalka waxaan ku jirnay tababarka muddo imika ku dhow 2 bilood taasi aan u diyaar garoobinay israareebka ka bilaabmi doona haddii Ilaahay raahdo gobolka Awdal. waxaanu aad u rajaynaynaa doorkan anaga oo aad u adag inaanu ciyaaro fiican soo bandhigi doono maadaama aanu training fara badan soo qaadanay. tababarkayguna wuxuu ahaa mid heer sare ah. Mukhtaar Nuux Ibraahim, Hon Cable TV, gobolka Gabiley.